Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada. Maanta waxaan rabaa inaan baro qoraalka Kuuriyaanka sida loo qoro iyo loo akhriyo. Galaaskan ugu horeeya waxay noqonaysaa shibinayaashada. Shibinayaashada Kuuriyaanka waa 14 weeye. 14kaas baan maanta baraynana ugu horeeya. Intaanun bilaabin waxaan rabaa inaan idin sheekeeyo taariikhda qoraalkan. Oo qoraalkan waxaa la dhahaa Hangul baa la dhahaa. Boqorka Kuuriyaanka baa la soo baxay oo magaciisa ahaa King Sejong sanadkii 1443 buu la soo baxay. Intaanan la isticmaali jirin qoraalkan, Kuuriya waxaa lagu isticmaali jiray qoraalka Shiinaha. Markaa boqorka baa qoraalkan uu la soo baxay dadkiisa oo waa qoraal aad u fudud oo dhaqso loogu baran karo. Waayaha bilaawno shibinayaashada oo Ingiriisi lagu dhaho consonants baa ugu horeeya. Laakiin sidaan kuwan u akhrino waxaanu ag dhigaynaa a oo alif oo kale ah. Xuruuftan aan ag dhigay waa a weeye oo shaqal ah. Shaqal Ingiriisi waxaa lagu dhahaa vowel. Vowelkaas waxaanu ag dhigay sidaan u akhrino. Haddaba kan ugu horeeya aanu ka bilowno. Kan waxaa weeye ka weeye. Ka iyo ga buu dhexdhexeeyaa oo waa ka. Marmar wuxuu noqdaa ga, marmarna ka uu noqon karaa oo hadhowtaan laakiin baran doontaan. Kanna waxaa weeye na weeye. Nuun oo kale na. Kanna waxaa weeye ta weeye. Da iyo ta uu dhexdhexeeyaa oo waa ta. Kanna marmar wuxuu noqon karaa ra, marmarna wuxuu noqon karaa la. Ra iyo laam oo kale weeye. Laakiin adigu hadda waxaad xasuusan kartaa laam. La weeye. Kananka ilaaway. Kan square-ka u eekana waxaa weeye ma. Waa ma. Kanna pa uma noqdaa ama ba oo kale weeye. Kanna waa sa. Kanna markuu u dambeeya kani weeye. Markuu bilowga saaran yahay dhawaaq ma laha. Hadeer bilowguu saaran yahay dhawaaq ma laha. Haddaba a'da kaliya iska odhanaynaa aanu. Laakiin markuu ugu dambeeyo waa so hadeer a weeye maadaama uu bilowga saaran yahay. Kanna waa ja. Jim oo kale weeye. Ja. Kanna waa cha. Kanna waa kan oo kale weeye. Laakiin waa ka. Waa kan oo dhexda calaamad laga saaray. Waa ka. Kanna waa ta. Waa kaas oo kale oo dhexda calaamad laga saaray. Ta. Kanna waa pa. Kanna waa ha. Waayahay ku soo celino mar kale. Ka. Na. Ta. La. Ma. Pa. Sa. A. Ja. Cha. Ka. Ta. Pa. Ha.
waa intaasaanu baranayaa maanta. Videoga waad joojin kartaa, waad ku celcelin kartaa. Hadeer waxaan idin barayaa si aad u baran kartid oo dhaqso ugu baran kartid. Kaararkan oo kale baad googoosanaysaa oo intaa la ekaysiisanaysaa, ama haddaanan haysan duuba caadi aad soo qaadaysaa, intan oo kale ka jaraysaa. aad waxaad dhinaca ku qoraysaa kaas oo ah ka, dhinaca kalena waad ku qoraysaa sidaas oo kale. marka waa isxaafidsiinaysaa aad, marka adaa imtixaan iska qaadaya. saasaa dhaqso ugu baran kartaa aad. waayahay galaaskana halkaas ku dhammaaday. waa inoo maalin kale in kalaan idin barayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.